waxaa laga joogaa muddo ka badan 1 bilyan badh markii xukuumadda Soomaaliland ay shaacisay baasaboorka dalkan Soomaaliland lagu tagi karo dalka Sultanka Imaaraadka Carabta xilligaas oo si wada jira u shaaciyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland sidoo kale madaxda Soomaaliland uga qayb gashay heshiiska DBL oo kamid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCID injineer Faisal Ali Waraabe dalka Sultanka Imaaraadka Carabta ayaa dalalka farakutiriska Soomaaliland ka caawiya dhinacyada horumarka hadaba bulshooyinka reer Togdheer Sibar reer Burco oo la hadlay telefishinka Soomaaliya ayaa fikirro kala duwan ka dhiibtay balse u arkaan hadalkaasi ka soo yeeray madaxda dalka waxayna sidoo kale carabka ku adkeeyeen inay tahay guul u soo hoyatay Soomaaliland hadiiba uu rumobo hadalkaasi hadaba bulshooyinka reer Togdheer Sibar reer Burco oo la hadlay telefishinka Soomaaliya ayaa fikirro kala duwan ka dhiibtay balse ay u arkaan hadalkaasi ka soo yeeray madaxda dalka waxayna sidoo kale carabka ku adkeeyeen inay tahay guul u soo hoyatay Soomaaliland hadiiba uu rumobo hadalkaasi laakiin dawladdu waxaan leenahay mar walba taargeedkeedu inta dhaafsanaado waayo maanta shicibku waxa waa leeyahay barar waxaan soo dhaweynaya oo aan taageersanahay oo aan ku faraxsanahay oo aan hambalyeynaya baasaboorka jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland ee leeydi waxa lagu tagayaa dalalka Carabta aad waa guul taariikhi ah waa talaabo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aan ku hambalyeynayo madaxweyne waa talaabadii ugu horeysay guushii intii aan ku dooranay aad keentay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii waan soo dhaweynaya waxaan u arkaa baasaboorkaas horta marka hore jiritaanka dalka waxyaabaha tiirka waabay ka mid tahay waa guul baan leeyahay guul ilaahay wuu inaga soo furtay baasaboorkii xumaaya inaan shaqada ku lahayn lagu wareegaysanayay marka waa kii qarannimadu dee astaanta tiirka waxa weeye waxaan u arkaa waxaan waxba ka jirin oo photocopy lagu luminayo muslimka maadaama aynu nahay Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan waxba uga online ayaynu nahay gabigeena waxa laga soo qaaday 4,000 kun booba iibsanahayba waxaan u arkaa insha Allah taala marka koowaad waa guul wax weyn oo qaranka soo hoyday laakiin asalku waxay tahay in la ogaado inay waxayeen waxa ta jira aan beelan ugu sheekayn asalku waa intaas anigu ah muwaadin reer Burco oo Burco ku nool reer Soomaaliland baasaboorka waxaan u arkaa horumar iyo barwaaqo soo korodhay oo dadka reer Soomaaliland ay heleen marka waxaan leeyahay xukuumadda waa barwaaqo waa horumar waa farxad buu noo yahay waxaan leeyahay haraha loogu maro arinta la hirgeliyo dadku ha ku hirtaan aan arkaa baasaboor aan waxba ka jirin oo ma yamshiya kowladii marka waxaan arkaa baasaboorkaas in dadka masaakiinta lagu jeedinayo asxir barar ku haysto baasaboorka Soomaaliland ee lagu gelayo wadamada caalamka waxaan u arkaa guul loo soo yeeray waana mid ka dhigan horumarka ay sameysay Soomaaliland iyo guulaha u soo hoyday Soomaaliland baasaboorka Soomaaliland wali ma la rag laakiin dawlad sheegayda caday marka maqal laakiin wax jireen ahayn baan ogey anigu Axmed Wala Caynab waxaan ka hadlayaa maanta baasaboorka itraafay Soomaaliland Imaaraadka baasaboorkeena oo la itraafo dal Carab aynu itraafo horta waa aynu guul aynu gaarno laakiin si kordhina dilaa marka horta Ilaahay baa mahad iskale Ilaahay ina siiyay nabadda iyo barwaaqada iyo bashbashka aynu ku noolay laakiin waxaan u sheegaynaa madaxweynaha iyaga qaaliga mudane Muuse Biixi Cabdi in aanu baasaboorka uu sheegay ee uu soo sameeyay aanu ahayn mid shaqaynaya baasaboorka waa guul la gaaray aan Soomaaliland lagu dhafay abadoon lagu qabanayo Imaaraadka oo Sacuudiga lagu qabanayo waa guul aan gaarnay Axmed Digro telefishinka Soomaaliya Burco